Somaliland ayaa dacwad ka dhan ah gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed u gudbisay maxkamadda sare. Maxkamadda ayaa Khaliif u qabatay in uu dacwadda kaga soo jawaabo muddo 7 cisho ah. Dacwadan oo maxkamadda sare ee Somaliland u gudbiyay xeer ilaaliyaha guud ee Somaliland Cabdiraxmaan Jaamac ayaa lagu sheegay in ay farayso in la ilaaliyo xubinnimada Khaliif ee golaha oo lagu eedeeyay in uu ka hor yimid jiritaanka Somaliland iyo in aanu soo xaadirin 20 fadhi oo golaha uu yeeshay. Haddaba maxkamadda sare ayaa Khaliif u qabatay inuu muddo 7 cisho kaga soo jawaabo dacwadda. Maxkamadda dastuuriga ayaa u dirtay gudoomiyaha golaha wakiilada nuqul ka mid ah dacwadda dastuuriga ee uu ka soo gudbiyay xeer ilaaliyaha guud ee qaranku, taasi oo ay kaga dalbanayso in uu kaga soo jawaabo muddo 7 cisho gudahood ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay maxkamadda sare. Gudoomiyaha Khaliif ayaa golaha ka soo xaadirin muddo bilo kadib markii madaxweyne Biixi u diray magaalada Laascaanood si uu qayb uga noqdo deganaanshaha ku soo celinta magaalada Laascaanood halkaasi oo ay dagaalo ka jireen, laakiin waxa uu taageeray go'aamadii ka soo baxay garaadada ee ka dhanka ahaa joogitaanka ciidamada Somaliland ASCC ama magaalada Laascaanood. Waxa kale oo uu ciidamada Somaliland ku eedeeyay in ay duqeymo iyo burbur ay u geysteen magaalada Laascaanood, isaga oo sheegay in uu madaxweyne Biixi dhageysan waayay tala soo jeedin uu uga sameeyay joojinta colaadda. Gudoomiyaha golaha baarlamaanka Somaliland Cabdirasaaq Khaliif iskama casilin xubinnimada iyo gudoomiyenimada golaha wakiilada Somaliland, isaga oo bilihii u dambeeyay inta badan ku sugnaa magaalada Laascaanood.